Education is crucial for the rebuilding of Somalia. Many children have only had very limited education. Some children have never had any. A child's right to education is as sacrosanct as a child's need for water, food, lodging, and peace. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ilmaha Soomaaliyeed oo dhan waxa ay mudan yihiin in ay helaan waxbarasho tayaysan oo aad u wanaagsan. magacaygu waa Sharmaarka aadan dhuugow. markaan weynaado waxaan jeclahay inaan dhaqtar noqdo si aan wax ugu qabto dhibaatada dalka ka jirta. sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan helo aqoon wanaagsan. magac bilaaw Yuusuf Barbe waxaan jiraa 12 sano maadaama aan waxbarasho aan rabaa. We all need to come together and help educate our children. Everyone must play their part. Government, parents, teachers, and community. We have to do this together. Educating our children will play a role in the fight against the poverty and illiteracy. magacay waxa la Mukhtaar Maxamed Ibrahim أنا wax ma barto inaa wax barto waa rabaa ilmaha inaa wax u dhigo laakiin daruufta ay u kaliftay hooyaday aabahay oo shaqaysta. I see schooling as part of a general way of disciplining children, the mind of children. And the reason is because it's the mind that counts. Tacliintu waa waxa kaliya oo lagu horumarin karo aadamaha xasilloonina lagu gaari karo. The government of Somalia wants to get 1 million children and youth into school, but can they do it on their own? They need Somalis in the diaspora to reach out in whatever way they can, be it with funding or other resources. They need the private sector around the world to donate.